marar badan waxaa lagu soo celceliyay xirfadda ah freelancer oo sidii ayaa laga shaqaystaa sidoo kale adna waxaa dhici karta inaad weydiidba xirfadda kaga dhex shaqaysatid website-yada freelancer-ka haddaba muuqaalka waxaan kugula wadi doonaa ilaa 3 xirfadood oo adigoo aanad garanayn xirfadda haddana aad website-yada freelancer-ka aad kaga dhex shaqaysan kartid taas oo macnaheedu tahay inaad project ka soo qaadan kartid website freelancer-ka ah adoo mashruuci u diraya qof kale oo xirfad leh haddaba muuqaalkeena waxaan ku arki doonaa sidee ayaad isku xiri kartaa laba qof oo midna loo shaqaynayo midna shaqadii garanaya adna aad halkaa wax uga dhex samayn kartaa muuqaalkan ayaynu ku arki doonaa waxaanu ka mid yahay muuqaaladeena taxanaha ah ee ku saabsan dhinacaasi websites fadlan intaynan muuqaalka gudagelin waxaan jeclaan lahaa inaad leegaraysid casharkan sidoo kalena kanaalka haddii aad subscribe gareyn inaad subscribe garaysid haddaba mar walba muhiim ma aha markaad freelancer-ka isticmaalaysid inaad xirfadda halkan ka dhex shaqaysanaysid ay noqoto mid adigu aad taqaanid way fiican tahay inaad yeelatid xirfadaad ka dhex shaqaysid website-yada freelancer-ka ah laakiinse waxaa jira habab adigoo aan xirfadda aqoon laakiinse haddana hawshii amba shaqadii aad qaban kartid taasna ay sababayso teknolojiyadan cusub tusaale ahaan oo kale iminka halkan shaqo ayaa laga soo weydiistay amba shaqo ayaa laga baahan yahay shaqadii waxaan helayaa dad kale oo ii qabanaya amba waxaan helayaa website kale oo ii qabanaya waxaa jira hawlo yar oo fudud amba tricks yar oo fudud oo ay dad badan sameeyaan waxaana jira dad badan oo ilaa 15 xirfadood oo aynay garaneyn ilaa 12 ka mid ah halkan ka dhex shaqaysta tusaale ahaan oo kale iminka Fiverr buu ka qaadanayaa project uu ka qaadanayaa Fiverr ah in muuqaal dhameystiran loo soo edit gareeyo kadib wuxuu tagayaa website kale website-kaas isagu qofka la heshiinaya lacagta uu ku soo qaatay project-ka lacag ka yar ayuu kula heshiinaya kadibna hawshii waa loo soo dhameystiray isagana intii kalena qofkii uu siinaya amba website kale intiisii kale u tuuraya intiisii kalena uu qaadanaya haddaba saas ay tahay maanta waxaan ku hayaa laba website oo haddii isticmaashid freelancer-ka Upwork iyo Fiverr iyo sidoo kale website kale ee freelancer-ka oo dhan ah inuu ku saacidaya haddaba labadan website labaduba waxay iska saacidayaan xirfado halkan ay ku yar tahay dadka ku shaqaysta halkan dadka yaqaan way ku yar yihiin laakiinse haddana waxaan ku hayaa laba website oo intiba ka saacidaya iminka tusaale ahaan oo kale haddii aynu gelino halkan oo loo soo gaabiyay search engine optimized oo iminka tusaale ahaan oo kale haddii ay website-kaaga cilad gasho waxaad u baahan tahay qof cilmiga yaqaana si uu u baaro wixii cilada ee ku jirta kadibna markuu ciladaha dhammaan uu eego meelaha uu ka qaldan yahay website-kaagu kadibna report kula soo wadaaga report-kaas baad ku arkaysaa amba ku akhriyaysaa meelaha ka qaldan amba meelaha ay ciladu ku jirto kadibna meelahaas baad iska saxaysaa loo soo gaabiyay search engine optimized waxaad helaysaa dad badan oo raba in maxay tahay YouTube-kooda loo mariyo in website-kooda loo mariyo dhammaan adu aad website aad u fara badan oo cilado badan haysato haddaba marka aad iminka tusaale ahaan kale ku qorno Fiverr baan hadda kana isticmaalay waa Fiverr Fiverr-ku isagoo kaliya wuxuu kaaga baahan inaad soo gelisid Gmail-kaaga wax badan kaaga u baahna marka laga yaabo inta yar bixiska marka laga yimaado laakiinse haddana waxay u baahan tahay waxyaabo kale oo dee xagga lacagtii waxyaabahaas oo kale mar baan kasoo yar diyaariyay waan filayaa 10 Upwork ku saabsan Upwork ay iskaga dhow yihiin xagan baan kaaga soo baxaya muuqaalka Upwork-ga ah muuqaalkaas ayaa soo daawan doontaa Upwork-ga buuxsan doontaa halkaasna waa kaga shaqaysan kartaa amba waa u isticmaali kartaa SEO-da Upwork gudihiisa waa ku gudaga heli kartaa haddaba iminka markaan aan saan oo kale u search gareeyay halkan waxaan ku arkay dad badan oo igu leh waxaas lagu qabanaya sidoo kale waxaan ka helayaa dad raba inay hawshan loo qabto oo lacag ku bixinaya dad raba inay maxay tahay iyagu qabtaan iminka kan oo kale wuxuu igu leeyahay intaas baan ku research gareynaya kan oo kale inta baan ku research gareynaya kan oo kale marka adoo shirkado dad wax way ka buuxaan tusaale ahaan inaku cilmigan ma lihiin oo website ma marin karno SEO-da oo waxaynu u baahanahay inaynu sameeyno haddana barnaamijkeen qaadano oo aynu qofkii si fiican oo si sax ah u shaqeyno waxa soo geli doontaa browser-kaaga kadibna waxa search gareyn doontaa website-kan baad search gareyn doontaa waa SEO analyzer baa la SEO analyzer bhdks.com kaas baad soo geli doontaa marka soo geshid kadibna waxaad iman doontaa kan baad iman doontaa labaad SEO ay ku qoran tahay marar badan ma SEO yiri laakiinse waa SEO labada xaraf inta badan isku yar qaldan website-ka marka soo geshid website-kan wax kale kaaga ma baahna hawshu wuxuu kugu soo koobiyaa wax yar mashruucana si fiican baad u qaadan kartaa waan ka soo bixi kartaa qofkuna runtii ku qanacaya oo isaga si automatic ah website-kan u qabanayo wax walba oo laaga baahna
kaliya waxa kale lagaga baahan waxa weeyaan qofka hawsha kuu soo dirsaday inaad soo qaadid website-kiisa linkigiisa amba haddii noqoto Facebook page-kiisa linkigiisa amba aduu halku rabo in loo mariyo eegitaanka amba search-ka loogu sameeyo kadibna website-kan baad soo geli doontaa. Website-ka markuu inoo soo kaco ayaan arki doonaa. haddaba website markuu soo inoogu soo kaco waxa lagaga baahan inaad bartan gelisid, bartaas ayaa lagaga baahan inaad gelisid linkigii website-kii aad rabtay inaad ku sameysid searching-ka search engine optimization-ka ku sameysid. imika tusaale ahaan oo kale website-kan la yidhaahdo samyonline.com ayaynu soo qaadan doonaa. waa website uu leeyahay ninka lagu magacaabo Sami. waxa ayaanu dhex isticmaalaa waxa cilad baa keeni jirtay. imika tusaale ahaan oo kale waxaan soo qaadanaynaa linkigiisa kadibna waxaan tegi doonaa website-keena caadiga hawsha ka qabanay kadibna waxaan ku oran doonaa past ayaan oran doonaa. past markaan nahno maxaan ku oran doonaa review baan ku sameyn doonaa. wixii qalaba ee halkan ku jira ayuu inaga caawin doonaa inuu si fiican inoogu soo saaro amba inoogu soo bandhigo. marka dhammaan wuxuu kuu soo bandhigi doonaa waxyaabo badan amba waraaqo badan oo report ku saabsan oo qoraal ah. markasta waxaan laga rabaa waxa lagaga baahan inaad qoraal ahaan u gudbisid si bahan luqadda Ingiriiska. marka review oran doonaa searching gareynaya. haddaba markuu searching-kan dhaafo kadib wuxuu geli doonaa hawshii ah inuu optimize gareeyo website-kan. waanu baarayaa wixii qalad ee ku jira oo dhan dhammaantoodna dibadda soo dhigaya isagoo waraaqahaas la digi doontaa oo PDF ahaan baad ula digi doontaa. waxaana u diri doontaa shaqsigii ay ciladu haysatay. tusaale ahaan oo kale waa kan wuxuu ku samyonline.com ayaan maxay tahay ku sameynaynaa ayaan eegi doonaa analyze gareynaa. waxana wax cilada kuma geynayso website-ka ee kaliya waxan baad eegi doontaa waxan baad arkaysaa wixii qaladaad haysta amba wixii issue ku dhex jira. halkan oo kale waxyaabahan oo kale waa ayaa halkan ku soo kala saari doonaa. ugu dambeyntii waxaan oran doontaa halkay ku qoran tahay download reports bal digi doontaa reportada halkan lagu soo saaray ayuu maxay tahay lagu dejin doonaa oo dhammaantood ayaad geysan doontaa xaggaagii. in badan oo halkan ka mid ah waxaad arki kartaa xogo badan oo ku saabsan website-ka aad gelisay. laakiin haddana waxaan wax dhib u keenaysa maaha. dadka qaar baa laga yaabaa in wax yar sensitive oo haystaan laakiin iska caadi qof iskuu shaqeeyo baa tahay inaad ogaatid haddii wax ka dhex qaldan yihiin iyo hadduu dhammaan wada saxan yahay. in badan waan aragnaa oo website-ka wax qaldan kuma dhex jiraan saxan yahay keywords-ka intaas u isticmaalaa. sidoo kale xaggana waa wax khalkhal ugu jira ma jiraan. review-giisa waxa weeyaan only shop buu kusoo galaa. heading-giisana waa new product okay. marka xogo badan halkan ku saabsan waxba kasii sheekeyn mayno laakiin haddana markuu intan ku dhameeyo halkan uma taaban doontaa download reports wixii laga soo gudbiyay xoga kadibna maxay tahay waxaad u gudbin doontaa shaqsigii hawsha aad uga baahnayd. soo kala hadii ku noqono Fiverr waxa jirta iyaduna shaqo kale oo xirfadeedan ku hayo aan lahayn aad ku shaqeysan kartid aba shaqo kale oo aad xirfadeeda lahayn laakiin aad ku shaqeysan kartid. waxa jirta hawl la yiraahdo HTML design amba HTML edit baa la yiraahdaa. oo tusaale ahaan kale website-yada markay ku jiraan halkan waxa ka soo muuqda dhinacan yar oo kamid ah waxa ka soo muuqda xaysiisyadaas oo kale loo sameeyo sibahan design-kooda amba template-kooda oo kale. iminka dad badan baa halkan rabaa kan wuxuu rabaa inuu isagu sameeyo waan ku sameynayaa Google Ads Partner Design Professional baan ku sameynayaa web designer. dhammaantood kuwan oo waa dad badan oo hawshan iyaguna raba inay ku shaqeeyaan iyo qaar raba in loogu shaqeeyaba. okay Upwork inta badan isaguna waa soo kale laakiin isagu wuxuu ka fiican wuxuu ku kala saarayaa dadka shaqada raba iyo kuwa loo shaqeeyaha ah. laakiin si halkan adaa xirfadda soo bandhigaya kadibna qofku u baahan ayaa ku soo qabanaya saas ay tahay. haddaba markaa aynu u gudubno website-kan rabno inaynu u adeegsano inay xirfaddan ku sameyno oo kale. xirfaddan oo kale imika tusaale ahaan ma lihiin laakiin haddana waxaan sameyn karnaa zero food waan sameyn karnaa. waxaan diri doonaa isaguna website cusub ay soo furan doonaa. imika tusaale ahaan oo kale halkan baad ku qori doontaa banner design baad ku qori doontaa adoo aan hadan xirfadii lahayn. banner design-ka halkan uu ku soo baxaya. haddaba website-kan adeegsanaya waxa weeye waa Canva. website-ka Canva isagu wax badan ayuu ka saacidayaa. website-ka Canva dadka qaar baa kaliya adeegsan inta lacag ku shubtaan
halkan waxaa ku jira isticmaala laakiinse mid ka fiican baa idin hayaa. Website-kan waxaad samayn kartaa intaad adigu design samaysid ayaad ku dhex iibin kartaa, sida Fiverr oo kale ayaad ugu shaqaysan kartaa website-kan. Dadka waxaaga isticmaala bannerka amba waxaad samaysay isticmaala design-kaaga isticmaala boqolkiiba saami ayaa lagaa siin doonaa wax soo saarka dadka isticmaala ee uu ka qaadanayo bahal. haddii aan calaa mid looga iibsan laakiin siyaga si guud ba laga iibso qofka markuu $100 oo kale la ku $10 ku shubto waxaan oo dhan free bay ku noqonaysaa oo kale. laakiin haddana hadhow iyagu lacagta iyaga ku jaraayo waxaaga way ku siinayaan. marka xaggan waad ka heli kartaa, Canva gudihiisa waad ka heli kartaa. mid kale oo la yiraahdo bannersnack.com isagana waa laga helaa, waa lagu samayn karaa HTML ediska. waliba haddii aan sii geliyo xaggan HTML ediska kan laftirkiisana waa kan. haddaba dhammaantood halkan waxaad ku arki kartaa waxyaabo badan oo aad iyo aad u qurux badan. HTML ediska iyo waxyaabaha kale ee xaysiimaha oo kala dhan halkan intaad halkan kasoo qaadatid mashruuca ayaad adeegsan kartaa website kale. sidoo kale waxaa jirta arrin yar oo qurux badan oo ah inaad maxay tahay halkan qof shaqo raba inaad shaqada ka qaadid kadibna aad qof kale adigu iskaga dhigtid kii shaqada rabay. laba lacagood baad kala dhimaysaa, adiguna lacagtii hore aad ku soo heshiisay shakhsigii hore lacag ka yar in baad ka heshiinaysaa ka dambe, kadibna kii dambe ayaad shaqaysiinaysaa. shaqadeen waxaad rabtaa qofkii hore adigu laba qof ayaad u dhaxayn kartaa, lacagtooda aad ka qaadan kartaa si reflection loo isticmaalaan oo kale. aad iyo aad baa mahadsantihiin. muuqaalkan maanta soo koobay, fadlan kanaalka subscribe garee.